بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada barnaamijkan wuxuu quseeyaa lottery hadaa tahay dhalinyarada lotteryga Mareykanka baqtoonsiga Mareykanka lagu imaan jiray ama lagu imaan doono hadaa xiiseeso barnaamijkan adigu quseeyaa shuruudo badan soo kordhay shuruudahaas si fiican u sharxi doonaa laakiin marka hore waxaan rabaa si boobsiisa barnaamijkan lotteryga wuxuu kamid yahay barnaamijyada Soomaalida sida sahlan Mareykanka adduunka dhan ku imaado laakiin Soomaalida gaar ahaan sida sahlan Mareykanka ee ugu imaan jireen anigaan hadda idin la hadlaaya kamid ah dhalinyaradii ilaahay uu u saqiray in barnaamijka lotteryga aan helo waliba ahidoon lacag iyo waxba rafaad silac wax isku aruursi kadib ilaahay uu isaale ugu dambeyn 2014 ma dhow dhalinyaradaas waagaas ku waalneed barnaamijka lotteryga ayaa aniga kamid ahay ee dalka Mareykanka ilaahay uu keenay dhalinyaro aad u far badan ayaa iga dambeysay barnaamijka ku timid laakiin waxa hubaa 100% dhalinyaro badan inaysan iga horreenin barnaamijka lottery waa taas xaq noogu riix marka barnaamijka waa barnaamij sax maanta October 8 la maraaya ilaa hadda barnaamijka ma furmin Trump muxuu barnaamijkan ugu dhagan yahay waa isweydiinaysaa laba shuruud awgeed ayuu barnaamijkan u furmi waayay October koodeeda hadda balanta waxay tahay October 16keeda inuu barnaamijkan furmo ninka Trump ahaa wuxuu rafto laba shuruud soo rogay shuruudda $1 inaa bixisid barnaamijka isdiiwaangelintiisa kaliya iyo shuruud labaad oo ah inaa passport haysato su'aasha isweydiinaysaa waxay tahay baasaboorka Soomaaliga ma la aqbalayaa in isku diiwaan geliso maadaama hadda shuruud laga dhigay jawaabta oo fudud waa yes Soomaaliya barnaamijkan shuruudahan hadda adag ee soo kordhay Soomaaliya ama dhalinyarada Soomaaliyeed ma u fiican tahay mise waa u xun tahay waa yes and no way labadaba waa iswadataa yes waxay u tahay dhalinyaro waxay jirto daacad ay ka tahay lillahi hatta laga yaabaa qaarkood inay shaqaystaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya joogo xataa Kenya Ethiopia iyo daadsan dhalinyaro Soomaaliyeed oo barnaamijkan xiiso u qabo sanad ka dambeeya galo laakiin inta badan not selected loo soo qoro iyo waxa kale oo jiro kuwa iska maalaa yacni waxa iskaga soo ordaayo oo iska xaxareysto Soomaalida markay qaybta ugu fiican tahay waxay tahay shuruudahan hadda la soo rogay ayaa waxay ka dhigi doontaa 80% Soomaalida inaysan xareysanin gabigeedaba barnaamijka lotteryga waxa xareysanayso 20% oo ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad u tiro yar markii number tiro yar uu xareystana the chances of success ama fursadda lagugu soo xulan karo ama lagugu soo dooran karo ayaa sii siyaadayso tusaale haddii hadda sanadka hadda la soo dhaafay oo Biden uu madaxweyne ahaa barnaamijka uu furmay lotteryga la wada xareysto Soomaali badan xareysatay kaba soo qaad 500,000 oo Soomaali ah ayaa barnaamijka xareysatay 500,000 haddii 100,000 oo kamid ah qish ama lagu qabto inay barnaamijkii xadaayeen ama xatooy ay sameynayeen ama hal qof laba magac uu ku galay sheekooyin noocaas lotteryga inta badan wuxuu sameeyaa dalkaas oo dhan wuxuu saarayaa reer u saarano marka waxa laga yaabaa dhalinyaro far badan oo daacad ah in hawd lagu cunay xaqiiqda ka hadlayna mugtahay laakiin barnaamijkan ku daacada wuu u fiican yahay so that's good news bad news kana waxa waaye barnaamijka lacagta la soo kordhiyo $1 ah kaliya ayaa ku cuslaan doonto dad aad u tiro badan horta inay helaan helida ka soo koow xitaa hadaa haysatid qaabkii si aad lacagta Mareykanka u siiso oo barnaamijka lotteryga markaa galaysid waa in kaar bangi waxsaas ay haysatid waay Salaama Bank iyo maxalli dahabshiil iyo bangiyo noocaas jiro ama xitaa Barclays-ka Kenya ku yaalo dhalinyarada haysato oo bank account wax meel u yaalaan kuwaas kaliya ka faa'iidi karo laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed markaas u fiirsid 85% dhalinyarada Soomaaliyeed bangi ma walaha lacagtaas mobilka ugu jirto bas ay yaqaanaan oo isticmaalaan marka way faanteen oo malaynaa hadirtaan dhalinyarada qaar way u fiican tahay ku daacadda ah oo laga yaabo inay shaqo haystaan oo laga yaabo inay bangiyo accounts wax ay haystaan ilaa $100 baa ugu jirtay way u fiican tahay dib noo soo celi barnaamijka $1 horta $1 waxaa loo soo rogay in laba mid uu sameeyo Donald Trump in waa mid koowaadee uu qarash fara badan ka qabto barnaamijka maxaa free looga dhigaa isaga taagan yahay lacag fara badan aan ka qabano marka barnaamijku waxa gasho 15 milyan oo qof ayaa gasho sanad walba Soomaal 15 milyan oo qof ala qof $1 ka qaad saasa waxa ku fadhisaa 15 milyan marka dhiko odaga dhikaas ku xisaabtamaya laakiin saas ay tahay $1 uu soo roga awgiis dad fara badan milyanaad ah aan barnaamijka xariisan doonin talabaad baasaboorka Soomaaliya yes 100% waa la ogol yahay in aad ku xariisatid barnaamijka DV lottery sababta idin sheegaya ana soo akhri barnaamijka DV lotteryga waa ka mamnuuc faquuq ama wax loo yaqaan discrimination in dal hebel laga reebo dal hebel la aqbalo adiga marka dad badan soo dirsaday Nigeria oo kale waa laga reebo barnaamijka Ethiopianka waa laga reebi rabaa Ingiriiska Faransiiska iyo Canada iyo lotteryga xariisan jiray ayaga waa laga mamnuuc sababtoo ah dad 50,000
oo qof ka badan ayaa lottery dadkooda already ay ku imaadeen dalka Mareykanka marka 50,000 oo qof markay dalka ku imaadaan oo waa dad aad u tir badan waa laga mamnuucaya Soomaaliya mamnuucid xitaa uma soo dhow maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed ee lottery ku yimid ayaa aad iyo aad u tira yara ku leh waaye marka barnaamijka baasaboorka maadaama laga mamnuuc ay ka tahay lottery inuu dal faquuqo Soomaaliya marka baasaboorkeeda waa ansax nidaam waxaa jiro kulley dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya ay ku wada hadli doonaan oo lagu ansixin adiga tusaale ahaan markuu barnaamijka furmo October 16keeda baasaboorka ay soo upload gareysatid tiga ku soo bixi doonto oo website-ka dowladda Mareykanka ee maamusho oo State Department-ga wasaaradda arrimaha dibadda oo ku sheegi doonto baasaboorkaada waa la aqbalay oo macnaheedu uu yahay waa baarnay waa soo ogaanay in baasaboor sax ansax uu yahay maadaama xitaa Mareykanka soo ay wali ilaa hadda uu ku sheegay baasaboorka Soomaaliya inaan la aqoonsaneyn laakiin marka application-ka sameynaysid waa la aqoonsan yahay luqadda fudud aan ugu hadli karo waa intaas marka barnaamijka insha Allah taala labadaas qodob soo kortay da $1,000 halka dollar oo kulley dad badan dalalka qaar si Etoobiyaanka iyo dalkan Soomaaliya xitaa dhalinyaro fara badan lacagtaas laga yaabo inaysan awoodin iyo dadkii iska gali jiray taas horta way kala yaraanaysaa dad tiri yar ayaa soo haray oo barnaamijka application-ka galay markay galaan dal walbana wuxuu xaq u leeyahay 7% 7% marka waa qasab hadee Soomaali dhan aan la wada xulanin macquul ma ah marka waxa badnaan doonto fursadda dhalinyarada lagu aqbali doono Soomaaliyeed ay badnaan doonto tan baasaboorkan hada isweydiinaysa su'aasha ah ciyaalka yaryarka xitaa ma laga rabaa xaaska ma laga rabaa yes adiga iyo xaaskaada iyo caruurta daa galaysiin kulli xitaa kan ugu yar labada bil jiro baasaboor inaad ka keentid ayaa eegan loo baahan yahay sidaas ay tahayna Soomaali far badan ku hari doonto maadaama baasaboorka dhalinyarada aysan wada haysanin marka warka daa idin soo koobo good news na waa tahay war farxad leh way u tahay dadka qaar ee barnaamijkan weligood gali jiray ee u dhaarinayay dadka qaar oo iska gali jiray oo shul ishal ay ka ahayd ayagana kulley ma gali doonaan intaasa soo kortay haddaa ila fahantay commentiga soo gal